halkani waa makhaayad ku taala kana mida makhaayadaha lagu cuno qaadka waxaana ka dhacday dhacdo naadir ah oo ku cusub geyga Soomaalidu degto. kani waa Mustafa Cabdillaahi Xaaji Daahir waxaana uu ku nool yahay magaalada Gabley muddo 5 bilood ah waxa uu qaad ahaan u cunayay geedka loo yaqaano dacarta. geedka dacartu waa geed abaareed yar oo leh caleemo hilbeed qodxaan yar leh oo loo yaqaano baal dacar. dacartu waxa ay ku jirtaa dhirta ugu muhiimsan ee laga sameeyo daawooyinka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. haddaba Mustafa Cabdillaahi Xaaji Daahir arrinka mid ka duwan ayuu sameeyay. makhaayaddan ayaa waxa uu si maalinle ah ugu cunaa geedka dacarta. anigu go'aan baan qaatay ninkuna inuu go'aan qaato ayaa fiican. waxa weeye gowskaygii markaan u arrimiyay geedu ku qanacsan yahay ayaan uga soo gooyay gurigayga agagaaradiisa geed ku yaala. Mustafa oo TV-ga SBC u waramay ayaa waxa uu noo sheegay in uu muddo 5 bilood ah uu si maalinle ah u cunayay geedkan dacarta isla markaana uu maalin kasta cuno 5 kiilo oo geedkana. 5 kiilo dacaran maalintii cunaa 5 kiilo dacara maaha 5 kiilo deeqan cunaa deeqa ilaahay ba kamid tahay. anigu deeq baan idhahaa deeq maadaama macnaha moogtaan ku qanacsanahay marka waana ku qanacsanahay waana ku fiicanahay. imika warkaa la wareysanayo goosigaygaas baan ka jecelahay. Mustafa ayaa waxa uu noo sheegay in uu muddo 20 sano ah oo uu qaadka cunayay uu ku bedelay geedka dacarta booskii qaadkana geliyay si uu uga maarmo cunista qaadka waxaana uu ka doorbiday in uu dacarta ruugo maalin kasta. qaadka waxaan cunay 20 sanadood baan cunay 20 year baan cunay macnaha imika 20 sanadood waan ka jarayaa daadayda 5 bilood bay saakayga bilaabanaysaa tiradu. okay qaadka iyo dacarta labadaba waad soo cuntay bal farqi intee leeg baa u dhaxeeya? ya dacartu aad macnaha u fiican tahay xaq caafimaad iyo xaq dhaqaalaba marka kana waa dhire dee labadaba macnaha dhameeyay noo dhigay. arrinkan ayaa ah mid naadir ah kuna cusub geyga Soomaalidu degto. bulshada Gabley ku noolna ku noqotay mid ay la yaabaan. goobtii aan waraysiga kaga qaadinay ayaa bulsho badan oo la amakaagsan arrinka ka dhacaya halkani ay ku soo xoomeen. marka kolayadii way iga soo horjeesteen marka kolayada qaarna waa la iga eryaada marka xaga ma garanaysa waan isla dhibanoo halkan falarka ka iibsan lahaa 2 falaasadood oo shahan qabaa. waayahay Mustafa markii aad bilaabaysay cunista dacarta ma la tashatay dhakhtar si uu kaaga warbixiyo caafimaadka dacarta? dhakhtarka ilaahay un baa la tashaday oo anigu gowskaygana waan la tashaday. gowskaygu shayga way qaban karo oo waan ku qanacsanahay. okay waxa jira geedo kale oo dhulkeena uu dihin ku yahay maxaad ku dooratay dacarta? geedkan ilaahay baa horta ii ilhaamiyay. ilaahay un baa moogtay ii dooray ka wax dooraa horta moogtay waa ilaahay. waayahay markii ugu horeysay ee aad bilaabaysay cunista dacarta maxaa kugu dhaliyay inaad cunto? gowskaaga dhaqankiisa lama bedelo gurigaagana dhaqankiisa lama bedelo. waayo waxaan arkay dadkii oo ruqday oo sidii xoolihii oo kale caleen moogtay gacanta laga siinayo ayaan arkay. marka goosigaygiina markuu aniga iiba goon waayo dadkii ka hadhay sidii goodirkii goosanayay baan iska goostay. Mustafa ayaa waxa uu noo sheegay in waxyaabaha ugu weyn ee dacarta uu ku mahadiyay ay ka mid tahay in uu kaga raystay qaantii looga raaci jiray qaadkii uu muddada 20 sano ah cunayay. habeenkiina aniga qaan layma raaco layma yiraahdo intaas macnaha gowskaagu waxyeelada caynkaas uu noo geystay layma yiraahdo.
mustafa cabdilaahi xaaji daahir oo ah ganacsade ka ganacsada iibinta cadarada iyo alaabaha fudud waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay kuna caloolsan yahay geedkan uu maalin kasta cuno ee dacarta. waanan ku qanacsanahay waanan ku caloolsanahay noloshayda inta ka dambaysana inaan bedelo lagama yaabo. marar badan ayaa mustafa tixo ka tiriyay faa'iidooyinka dacarta uu sida maalinlaha ah u cuno. naftanay doqon xunoo daalan baa tahay maantana naftanay doqon xunoo daalan baa tahay muddo badan waan kula dadaalayay dal iyo dibadba waan kula soo maray marna waan kuu dilaal tagay maantana darkii dacartanaan kuu duldhigay darar ka Soomaal baan leeyahay markuu ilaahay deeq siiyana waa durdurisaa meeshii dab laga shiday in bad ila dul joogtaa maantana darkii dacartanaan kuu duldhigay darar ka Soomaal baan leeyahay nafta dhameeyaa dhirtaa kuu dhigo badhbaa dheelka kuu cogay dhameeyaa dhirtaa kuu dhigo badhbaa dheefta kuu geliye dhameeyaa dhirtaa kuu dhigo badhkeedu waad ku dhaadanay dhameeyaa dhirtaa kuu dhigo badhbaa dhaashi kuu geliye dhagahaaga ma geli ninkaa dhoohan baa tee dumar baa isdheedo dhexdooda ku dhaato ku dhandhaare dheri maxaa deefta kaga dhaadan biriba waad ka dhaadhiciye markay dhacdo halka dhagaxa la isku saaraa dheel la dhigay dhagahaaga ma geli ninkaa dhoohan baa tahay isin ku weydiinaya waxa weeye dadka qaadka cuna ee aad makhaayaddan qaarkood aad wada fadhidaan maxaad kula talin lahayd inay anaga ugu daydaan oo iska seexdaan oo wadankooda iskaga xawal samaadaan. qaar ka mid ah dadkii ay mustafa makhaayaddan wada fadhiyeen ayaa TV-ga SBC uga warramay waxyaabihii muddadii ay fadhi wadaagta ahaayeen ay kala kulmeen ninkan dacarta sida maalinlaha ah ugu ag cunaa. bal sideed u aragtaa in dacarta la cuno adigu in lagu qayro waa fikirkan qaad karnaa kaas kase dawada oo taa daawada horaan de u soo arkay adigu ma waxaan baan arkaa inuu yado la isticmaalayo ma ruugi karayo naftii baan ugu hagaajinaynba saaxiibkeen saddex waa ka cunaya borotiin badan nafta waan ka heli mustafa markaan xad ila xad wareystay xaqasti xaq dhaqaaliya xaq jirkiisiiba hortaniyo qisa cajiib ah ayaa saaka la kulmay mustafa aqoon hore isku maanaan lahayn maqaaxida ayaan iyaro jaada la soo fadhiistay waxaan arkay ninkan mustafa oo dacara cunaya waxay u noqotay wax ama kaaga oo la yaaba dibaleetirna waan u qaadan waayey wayn kuwadooda cunaysa haashan kiilo baan cunaa dibaleetirnaani qisadaasi waa qisa aad iyo aad iga yaabisay doontaa cunista dacarta maaye anuu bilaabi maayo ummadda kalena waan uga digaya ها تعرف وحوي وحان عافيمات كاga la eegin qofku inuu iska cunaa maaha ay arrinkani ayaa ah mid dhif iyo naadir ku ah deegaanada ay Soomaalidu degto waana markii ugu horeysay ee deegaanada Soomaalida lagu arko nin ku qaylaya ama cunaya geedka loo yaqaan dacarta waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Udiin warkor baa inta SBC gobolka Gabiley.